aabbanimada iyo hooyanimadu waa nicma waa hiba min allahi subxaanahu wa tacaala yahabu liman yashaau inaatha wayahabu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraana wa inaatha wayajcalu man yashaau caqiima inahu caliimun qadiir ilaahay subxaanahu wa tacaala huba uu bixiyo weeyaan qofka ilmaha waaya ayaa garan kara nicmada la-aanteeda sideedaba nicmooyinka bini aadamku wuxuu dareemaa markuu waayo cunadu markay agtaada taallo qiimo badan ma leh laakiin markaad gaajootaabay kuu muuqanaysaa cunadu qiimaha ay lahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya inuu ilmuhu hibo yahay inuu nicmo yahay inuu noloshan aynu ku noolahay ziinadeeda yahay almaalu walbanuuna ziinatu alxayaati addunya nolosha dhalaalkeeda inuu yahay in min shahwaati nafs zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaa'i waalbaniin waxaa ilaahay inoo tilmaamaya subxaanahu wa tacaala dadka saalixiinta inay ku ducaysanayeen hab lana min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun kuwa ishu ku doogsato in ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dhigo waxaynu ognahay kobcintooda iyo barbaarintooduna cibaado ilaahay loogu dhowaado inay tahy qofkii 2 gabdhood barbaariya ama 3 barbaariyu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis badan ku tilmaamaya amase wuxuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka in camalkiisu go-o marka uu dhinto 3 shay mooyaane sadaqa jaariya oo uu ka tegey masaajid ha noqoto ceelbiyood ha noqoto madrasa uu dhisay ha noqoto waqfi jaariya uu ka tegey ama cilmi la intifaacsado uu ka tegey culammadeenni muslimiinta hore allah u naxariisto maanta shaafici madhabkiisa inta lagu camal falayo waa cilmun yuntafacu bihi uu ka tegey sadaqu u yahy amase buu nebigu ku tilmaamaya waladun saalixun yadcu lah ilmo saalixa ilmo wanaagsanoo uu ka tegay oo u soo ducaynaya sidaa uu haddaba ilmuhu nicmo iyo wanaagga u yahy ayaa nicmo waliba waa mas-uuliyaad ilaahayna weydiinayo aayaddu sheekhu akhriyey yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaas waalxijaara waana kii nebigu laha calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muslim ku yaalay waina liwaladika calayka xaqa ilmahaagu inuu xaq kugu leeyahy waxaan ku soo koobayaa markaa hantida ugu buurane aynu haynaa aynu ka tegi karna waa ilmo saalixa waa ilmo la hagaajiyey innagu ka bulsho ahaan mid si fiican baynu u fahamsannay ilmaha inuu waxuu cuno la siiyo oo uu ilmo xooggan oo naaxsan oo caafimaad qaba noqdo hadduu xanuunsado in la daweeyo oo dhakhtarka la geeyo oo loo dadaalo hadduu yar yahay in la tallaalo oo xanuunada mustaqbalka ee laga cabsanayo laga tallaalo waa feeding curing iyo vaccination taqdiya iyo tatciim iyo cilaaj haddaba waxaan leenahay intaasi jidhkay ku saabsantahe intaas oo nafsiya buu u baahan yahay ilmuhu sida haddii cunno aan fiicnayn loo siiyo uu u bukoonayo ayaa haddii suluukiyaad iyo afkaar iyo dhaqan iyo caqaa'id aan fiicnayn lagu ababiyo uu dhaqankiisu u bukoonaya yani waxaa bukoonaya waa maxay waa suluuggiisii iyo dhaqankiisii haddii waxa la siiyey ee lagu canqariya aanu wax fiican ahayn ilmuhu sida haddii waynu aragno wax weecadoo muuqda inuu sameeyey aynu nooc min alcilaaj oo ciqaaba u samayno ayuu u baahan yahay inxiraafaadka markuu ku dhaco in la toosiyo oo qalqallooca laga bi'iyo sida uu ugu baahan yahay tatciim qofku marka uu ku nool yahay meel xanuunadu ku badan yihiin
maalan dhakhaatiirta ama neersinka ama waxyaabahaasi meelaha xanuunadu faafa ay degan yihiin jooga marka hore iyagaa la tallaalaa waxaa loo tallaalayaa inaan xanuunkan ay daweynayaan iyagoo aanay qaadin dadku marka uu ku nool yahay meel culturally kala gedisan gaal iyo muslim iyo cid waliba degantay waa meelo khatara markaa multicultural meelo dhaqamo badan laga haysto markuu qofku degan yahay wuxuu u baahan yahay kow intuu yaryahay in si fiican loo tallaalo oo laga tallaalo xanuunada bulshadu qabto oo ay maxay ugu horeeyaan xanuunada caqadiga ah intuu yar yahay in loo laqimo oo la baro oo lagu tadriibiyo caqiide islaamiya saxiixa si uu tallaal u helo maxay u taraysaa waxay u taraysaa inxiraafaadka suuqa markuu u baxo inaanay dhibin inaanay mashkilad ku noqonin sidii kii laga tallaalayay xanuunka laga tallaalayay haddiiba ay dhacdo bacd alinxiraafaat inuu ku dhacana in la cilaajiyo waxaan qadiyadan uga dan leeyahay markaa geedka marka la beero wuxuu u baahan yahay hawl badan oo kale inta midhaha lagu rido uun biyo laguma shubo lagama tago ee waxaa la tijaabiyaa in ciidda loo faadhfaadho loo abqaalo waxaa la tijaabiyaa in minerals ama wax nafaqa leh diga iyo waxay doontaba ha noqotee wuxuu nafaqo ka helo lagu shubo waxaa la tijaabiyaa in laysku duduwo oo dhirtan magaalada hadiyo goor dhaadheer u aragteen markay yar yihiin baa bir lagu duuduuba si ay qumaati ugu baxaan aanay qalqalloocanin waxaa la tijaabiyaa in la buufiyo oo xasharaadka iyo waxa kale laga buufiyo waxaasoo dhan waxa looga dan leeyahay inuu geedkani si fiican u baxo waxaa la mid a baynu leenahay ilmaha korintiisu waa saas oo kale wuxuu u baahan yahay intuu yaryahay in la nafaqeeyo cunno ahaan caqli ahaan dhaqan ahaan ilmuhu da-duu joogay ku xidhantahy oo marba waxbuu u baahan yihi culamaai nafs waxay idhaahdaan da' kasta maalan sanad jir ilaa 4 jir waxa ugu badan ee uu u baahan yahy bay yidhahdeen waa xanaan in kalgacal la tusiyo dhabta lagu hayo la jeclaado waa waxa ugu foosha xun le bay yidhahdeen da-daa markuu yahay in loo dhiibo cid ajanabiya meelahan kindergardarka iyo meelahan carruurta yar la geeyo dumarka shaqo tagaan waxaa ka qurux badan bay leeyiin qofkaasi xanaanka wuu lumiyaa bay leeyiin waxa fiican bay yidhaahdaan waa more emotional bay yidhaahdaan ilmuhu sanad ilaa 4 jir intuu ka gaadhayo waa emotional saa daraaddeed taabashadaa la taabanayo dhabanka loo salaaxayo ama madaxa loo salaaxayo ama la dhunkanayo ama dhabta lagu haynayo ama la soo dhawaynayo ayaa uga naxariis badan waxa kaloo dhan markuu da-daas soo yaro dhaafo xaddu tamyiiz buu galaa waa marka talqiinku bilaabmo in weyse la baro in caqiido la baro in waxbaa loo laqimayaa marka uu soo gaadho 10 jir meelahaasi waa markuu waanada qaadan karo dhowr iyo 10 jir meelahaasi marka uu soo gaadho wuxuu u baahan yahay waxyaaba wixii hore ka gedisan bay yidhaahdeen kow alictiraafu bihi in la ictiraafo maxaynu uga jeednaa wuxuu jecel yahay istiqlaaliya inuu dee qof majuura iska dhigo marka adigu dib ha u celinin oo ku 15 jir iyo ku 16 jir iyo ku 4 jir waxaba haddaad tidhaa carruurtii meeday markana carruur maaha wuxuu isku dayayaa inuu mustaqil noqdo wuxuu u baahan yahay maalan waxyaaba badan inaad ka talageliso laakiin aad tilmaamto waxaan idhahdaa maalan suuqa intaad tagta 2 maroon intaad soo qaada oo dhan kuwan gasho laakiin waxa ka qurux badan bay yidhahdeen intaad kaxayso suuqa geyso inaad la taliso isaga waxaa laga yaabaa miduun inuu iska qaato inaad taa ceebteeda u sheegto tidhahda taasi ma fiicna tan baa waxaa ku fiican inaad qancin karto la taliso si uu u dooran karo waxa wanaagsan waayo waxaa loo train garaynaya qofkan inuu berri kaa tago inanta saad gurigu ugu hayso in guursado maaha waa inay iyadoo caqliyan majuur noqotay wax gadan karta wax iibsan karta waa talin karta waa inay guri kala tagtaa saa daraaddeed hadday dhowr iyo 10 jir qofku uu soo gaadho waa in majuurnimo loo tababaraa bay yidhaahdaan markaa qofku inuu mustaqil noqon karo waa in loo tababaraa
in la ictiraafo baahiyiisa iyo wixiisa leega waa in loo tababaraa inuu mas-uuliyad qaado waa loo tababaraa oo dee ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamaya ama sunnada nebigu calayhi salatu slam ama diinta dhammaanteed qofku hadduu qaan gaadho amaam allahi inuu mas-uul yahay oo aakhiro isaga wax la weydiinayo laakiin haddaad adigu ula dhaqanto markaa qof qaangaadho ilaahay baa leeya waan xisaabinaya haddaad adigu cadamulmas-uuliya ula dhaqanto adaa gardaran da-daa markuu soo gaadho nin iyo gabadhkuu doonayaba ha noqdee waa inuu qof mas-uuliyad qaadi kara noqda wax lagu aamini karo wixii loo diro wixii uu soo qabanayo wixii shaqo loo dhiibayo waa inuu qof wax lagu aamini karo u gaadhi karaa laakiin haddaad ka dhigto wax meel iska fadhiyuuna wax walba loo qabto oo markuu baxayana kabaan loo sii xidhxidho dharkana inta loo kaaweydayo meel la ysugu saaro adaa xumaynaya qofka wuxuu u baahan yahay qofkan inuu shaqaysto markuu hadduu da-daa soo gaadho oo uu mas-uuliyadda qaado waxaan kusoo koobayaa markaa tarbiyadu waxay yidhaahdaan culammadu intay cilmi tahay waxaa ka badan bay dhahay intay fantay cilmiga inta badan waa nadari waa meel baa la fadhiistaa war baa la isku akhriyaa laakiin intay fantay fanku waa waxyaabaha tadriibka u baahan tusaale ahaan gaadhiga wadistiisu intuu cilmi yahay waxaa ka badan intuu fan yahay maalan haddii inta class lagu geeyo lagu yidhaha gaadhiga sida loo wadaa lagu baraya oo lagu yidhaahdo furaha lagu shidaa dabeetana hambareegaa laga saaraa geerkaa la geliyaa kaleeshkaa la taabtaa breegaa la qabtaa steerinkaa laga wadaa wakaase kaxee haddii lagu yidhaha ma kaxaynaysa intaa lagu sheego waa maya waa theoretical waa laga yaabaa qoladiina darawalnimada qaadata halkan imtixaan theory-a in laydinka qaado sheegaya qofku inuu fahamsan yahay waxa kan lagu tilmaamayo laakiin intaa darawal laguma noqdo darawal waxaa lagu noqdaa marka qofku uu sameeyo tababar badan saacado badan oo wadisa oo qalada oo dhicisa markuu sameeyo kadib uu darawal noqdaa waxay dhahdaan tarbiyadu waa fanni u baahan qofku inuu qaato trainingkaasi waagii hore aynu dhulka muslimka qura joognay ee reerku wada deganaa ee ayeeyooyinka iyo eedooyinka iyo habaryaruhu guriga joogeen ee adeera iyo abtiyaal hareerahaaga deganaayeen waxaad haysatay violating ama dad guidance-ka ku siiyo waaweyn oo kaa weyn laakiin dhulalkan galbeedka markii la yimi ama afrikada tan ama meel waxaa laga yaabaa inaad guri cidlaa degto eediya habaryar iyo ciditoona kuu dhoweyn idan waxaad u baahan tahay wax badan oo tababara inaad soo qaadato marka waxaan leeyahay hablaha iyo wiilasha yaryarna hadday guri kusii socdaan tababar ha la siiyo ilan goonay u baxayaano meel cidlaabay tegayaane tarbiyaduna waa waxaa u baahan barashadee ha laysku dayo kutubta laga qoray ee islaamku qoray iyo qur-aanku wuxuu ka sheegay iyo sunnadu waxay ka sheegtay iyo waxaasoo dhan in dib loogu noqdo cilmiyana loo barto fani ahaanna lagu tarayngareeyo intaas baan tilmaami lahaa asalaamu calaykum waraxmatullah